إن هدان إذن كتشوابا سواشا إن كصابسن هوينيدن سومالي لاند شوكتا إن فاطمة ديب أما فاطمة قاسم ديب إن وحويان هرت runtii arrin aad iyo aad waji gabax fara badanna keentay fool xumana Somaliland u noqotay haweeneydaas sida aynu aragno waxaween haweeney uu farmaajo u magacaabay qaramada midoobay oo u qaabilsan qaybta haweenka maadan ay tahay gabadh uu farmaajo u magacaabay oo qaramada midoobay u magacaabay de Somaliland maaha maamul goboleed iyadu waxa weeyaan qaran taagan oo goon istaageeda qaadatay 1991 ina gabadh uu farmaajo u magacaabay oo iskii u magacaabay inaynu dawladna inaku qaabilno oo waliba ay xuskeeni ufo ay ka qayb gasho wax weyn mid aad iyo aad mustaxiil noqotay ufo waxaan astaantii Somaliland iyo xumaantii iyo xasuuqi Somaliland ku dhacay bay maxay u taagan tahay gabar uu farmaajo maanta uu soo magacaabayna inay dhex fadhiisato oo ka qudbadayso oo madaxweynaheeni aynu soo dooranay ag fadhiisato waxay noqotay mid aanan cidina ay qaadan karin weyn oo maanta baraha website-yada iyo media-haba aad iyo aad ugu maxay lagu falanqeynaya عدينتها إنه فرماتش ومقعابي واتاس وادكهلي سان جوجل كاتجلي كرتان ملو بود جلي كرتان وتهلكا كو عد هاي هدات هوسو داتكتد يدو وراقه دي بيسا أمل السينايو بعد عرك دونتان إن وحويان قبل صوماليا يو أنتو فردا أو كلا بي لمي تهاي سدادو عركسان وكا وحويان ومد آديات معجسة أنك نقطي والله يابنا إنه دبعتنا إسكت قشو إن ودن كيني ويكب محاحي دنيا دني يهوين كيني أي لكولانتو يودا أو صوماليا متليسا waxay taaso ay markaa ay marxaati oo kacaysa inay Somaliland ay ka noqotay maxay haydin goonistaageedii waana mid aana jirin Somaliland may ka noqon Somaliland farmaajo ma hoos tagto Somaliland waa qaran taagan oo ilaa 91 kii taagneyd oo intaas oo doorasho qabatay oo intaas oo madaxweyne ay isu soo mareen oo Maxamed Ibrahim Cigaal iyo Daahir Riyaale iyo Maxamed Silayo iyo maanta oo Muuse Bixi uu joogo afar madaxweyne bay iska soo maxay dhaxashay marka maanta inay gabadh yar oo uu farmaajo uu maxay magacaabay inay dhexdeena ay ceebta iyo fadeexada inta la eeg ay maxay inoo soo hoyso de wax weeyaan mid aad iyo aad u xun oo aan maanta aanu ka codsanayno dawladeeni madaxweynaheena inuu talaabo sharciya oo degdega inuu maxaa ahayd ka qaado sirdoonkeenu waa inay u yeedhaan waa inaan la weydiiyo sababta ay u timi iyo cidii casuuntay iyo halka ay iyo waxa ay maanta halkan u taagan tahay way haday Soomaaliya u taagan tahay this is Somaliland balayraha maaha in Soomaaliya mana aha maamul goboleed ee waa qaran taagan oo calankiisa astaantiisu uu meel walba ka bilbilayo wax aynu aqbalayno ama aynu fadhiisanayna maaha waxaanuna waxay daba fadhidaa kulmiye sidii uu u qabsaday ama kii hore ha noqoto ama kii dambe ha ahaato ina maxay hayd in ay waxay afar badan oo ku fadeexada inay maxay hayd inoo soo hooyaan oo marna yiraahan waa kaas oo darkaysa waxa weeyaan Faadimo oo farmaajo ay waraaqi isu dhiibayaan marka waxa weeyaan marna hadaa la inagu yiraaho xamar cidii ka timaado caruurteeni ay ku xiran tahay maanta jeelka Somaliland oo inan la yiri way ku riyootay inana la yiri buug ka qoraya ina la xiro te gabadha uu soo magacaabay farmaajo ay dhex meeraysato Somaliland te waxa weeye waa mid aan aqliga iyo maskaxdaba aan gelin marka waxaan codsan lahaa ina dhalinyaradaana la iska fasaxo oo la soo daayo oo jeelka laga soo daayo oo cafis waliba loo bixiyo taa waxa hadana la yaab labaad nagu noqotay shalay waanigi ka hadlay muxuu Maxamed Cabdilaahi Cumar oo golaha dhexe ee kulmiya sidoo jaamac shabeelna oo maxay hayd qiray inuu yahay oo shaarkii kulmiya uu yahay inuu xamar oo ra'iisul wasaarihii uu la fadhiyay
maba garanayaba sidaynu ku soconay malaha waxa tartan baa jiray tartankaana anaku wali aanu gelin oo aan ogeeyne malaha tartan loo kala dheereynaya xamar baa jirtay bal tartankaana marathonka balaano maxay dib ugu fiirsano haddana waxa halkan aad arkaysaa waraaqaha iyo meel walba ku qoran samsam oo wasiirkeennii hore ee maaliyadda oo la leeyahay iyaduna xamar bay caga dhigtay oo ka degtay iyaduna daba socoto lacag laga dhacay lacagta laga dhacay daanu ma garanayo waa lacagtii Soomaaliland laga dhacay un baan u maleynaya marka waxa weeyaan tara haddana iyaduna timi duwanu yaabanahay aad iyo aad baanu yaabanahay waxa weeyaan Soomaaliland bal hadii xukuumadeeni ay wax kala ay maxay hayde ay u bedeleen qarankii Soomaaliland aanu ma garanayno laakiin waxaan u baahanahay in si degdeg ah la nooga shaafiyo oo aan ogaano exactly halka ay xukuumadda kulmiye ay ka taagan tahay qarannimada Soomaaliland gabadha haweeneyga ana waxa weeyaan in talaabo degdeg laga qabto maxamed cabdilaahi cumar waa in talaabo degdeg laga qabto oo inantan samsana haday iyaduna iska tagayso shaarkii wali waxay huwan tahay inay tahay wasiirkayagii hore waa sharaf marka iyada laftarkeedii waxa weeyaan waaba mustaxiil haduu qof waliba markuu xilka degowdo tan xamar iska tago tartan aan ogeyn ba meesha ka socda tartanka police nooc ilaamiyo aan ogaano